واتهاي صاحبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبدا أين هودا كصاحبني كسو دوادا مقالك حقا الجنالك هنان إنجليش وإشارة إن شاء الله مقالك أنا مانتو حكوسة السنة هاي دور سؤالود أي إسوي دين خار كميدا أرديدا كحيران جنالك هنان إنجليش وإشارة خاصة أبدا أرديدا هذا إسو دياراني امتحانك سيئو قيبقاتان كنا بلانسان بريت إني أفريسان دونان إن شاء الله. موضوع وحوي هاي أستاذ sidee ayaan ku heli karaa boqolkiiba 99 imtixaanka dawliga waata waxaan kuu soo gudbin doonaa 3 sir ama 3 secrets oo aan anigu isticmaali jiray waagaan ahaa ardayga si aan ugu noqdo ardayga ugu wanaagsan ee xiisadaha una helo maado walba boqolkiiba 100 ama boqolkiiba 99 insha Allah saddexdaas sirood uma aan gudbin cidna uma aan sheegin ilaa ay hadeer balse hadda waxaan go'aan ku gaaray inaan u gudbiyo ardaydayda saaxiibadayda iyo dhammaan inta aan jeclahay ku xiran janalkani Hanan English Official maxaa yeelay waxaa jiro mawduuc aad idinku isticmaalaysaan kana walwalsan tihiin imtixaankiina dawliga ah insha Allah saddexdaas sirood laba ka mid ah waxaa laga rabaa inaad samayso oo aad qabato before the exam imtixaanka ka hor imtixaanka intaan la gaarin kahor inta aan waraaqada lagu keenin iyo intaba inaad samayso mid ka mid ahna mid saddexaad ahna waxaa laga rabaa markaad dhex fadhido imtixaanka inaad samayso waata haddaba maxay yihiin saddexda sir ee aan doonayna inaan kusoo gudbino number 1 ugu horeyn kusoo dhawaada muuqaal cusub inta aan u gudgelin mawduucaas kusoo dhawow muuqaal cusub waatahay saddexda sirood waxa ay tahay mid koowaad labada xab waxaan ku hormari doonaa labada shay oo lagaaga baahan yahay imtixaanka ka hor in aad samayso mid koowaad waxa ay tahay arday fara badan ayaa waxa markay maqlaan imtixaan waxa ay isu dayaan inay ka walwalaan walbahaar fara badanna iyo stress fara badanna ay dareemaan sida awgeed waxay ka tagaan cunadii waxay ka tagaan hurdadii iyo waxay sidoo kale isgeliyaan murug fara badan maadaama uu sugayo imtixaan ayna doonaya inay ka qayb qaataan midda ugu horeysa waxay tahay iska jooji murugada iyo sidoo kale walbahaarkaad isku dhidayso noqo mar waliba qof fikradiisa ay tahay mid wanaagsan iskuna malayso adigu inaad tahay mid imtixaanka baasay misna u diyaar garoobaya adiga oo ku dadaalaya misna ku daraya dagaal niyadaada mar waliba wanaaji niyadaada mar waliba fiicnaysi oo waxaad ka dhaadhicisaa inaad adigu ku noqon doontid imtixaanka midka ugu horeeya ama boqolka ugu horeeya aad ka mid noqon doonto waata midda xigta ee labaad waxa ay tahay jooji ka tegidda hurdadaada oo aad ka tegaysid jooji ardayda fara badan way ku kala duwan yihiin nashqad diyaarinta iyo qaabkay u diyaarinayaan imtixaankooda kuwa qaar waxaad arkaysaa habeenkii berit imtixaama la galay la dhahayo inay ka tegayeenbo dhammaan hurdadoodii marka ay hurdi lahaayeen waa su-aalan adiga ku weydiinayay haddii aad ka tagtay imtixaankaaga oo aad dhafarsan tahay hol ma qaban kartaa habeenkii aad dhafartay maalinkeeda waa may sidaas la mid ahna haddii aad habeenkaa imtixaama isku diyaarinayso oo aad dhafarto goormeed wax soo xasuusanaysaa goormees wax ka shaqaynaysaa adigaaba ah mid daroogaysan ee hurdo ku jirto good haddii aad isku dayday xitaa aad dhafarto kama shaqayn kartid maxaa yeelay imtixaanku ma ahan hal maado amana hal su-aal keliya lagu weydiiyey oo aad xifdinayso sidaas la mid ahna ma taqaanid mana aqoonsan kartid halka imtixaanka lagaaga keeni doona iyo qofka kuu soo diyaarin doona iyo meelaha nashqada ay kaa keeni doonaan maxaa yeelay haddii uu ahaan lahaa macalinkaaga maadada kuu dhiga ee iskuulka ugu soo bara maadada haddii uu kuu diyaarin lahaa waxaad ogaan lahayd in badan ayuu imtixaan kaa qaaday fikirkiisa fara badan waad aragtay meeluhu imtixaanka iyo su-aalaad kasoo bixinayana waad dareemi kartaa haddii aad la qabsato balse macalinka diyaarinaya weligaa ma aadan arkin midaad taqaanid inuu yahay iyo midaad aqooni inuu yahay sidaa awgeed waxaa lagaa rabaa su-aal fara badan inaad soo xasuusato mar walba adiyo imtixaanka aad dhex fadhido haddii hurda ku hayso sooma xasuusan kartid mana isku dayi kartid xitaa hal su-aal inaad ka shaqayso maxaa yeele adiga ayaa walwalsan hurdana ay ku haysaa good haddii aan usoo daadego midda kale ee saddexaad oo ah intaan imtixaanka aad fadhido good imtixaanka isla waqtigii lagu keeno hore ha ugu boodin oo ha ka shaqaynin
maxaan sameeyaa haddii aan ka shaqaynin warqadii imtixaanka la ii keenay. good anigaa kuu sheegi doona. ugu horeyn imtixaanka marka warqadda lagu keenaba iska jeegrey, magacaaga ku qoro, fasalkaaga inuu yahay in kale hubi oo jeegrey. markii aad hubiso kadib ku bilow su-aal walbo adigu aad taqaanid. hadhihin su-aashaana iga maqan aan soo xasuusanaya, may waxaa laga yaabaa su-aashii aad taqaanid inay kaa dhumi doonto. ugu horeyn ka bilow halka su-aala adigu taqaanid, ku xiji su-aasha 7aad adigu taqaanid, kusii xiji su-aasha 15aad adigu taqaanid. kadibna dib ugu soo noqo su-aalihii aad ka shaqeyd iyo kuwa kaa dhibay intaba. qayb kale haddii ay taalo tag qaybaha inta aad ka taqaanid kasoo shaqeey. qayb kaleo saddexaad haddii ay jirtana iyadana u gudub oo kasoo shaqeey inta aad ka taqaanid. kadibna dib ugu soo noqo halkii aad ka bilowday adigoo isdejinaya, isna waaleynin, maskaxdaadana si fiican ugu fikir. maxaa yeelay su-aali waxaa jira maskaxiyan ah. su-aasha haddii aad garan weydo oo aad soo xasuusan weydo ma faraaqad ugu tegi doontaa? waa may. ha ka tegin si faraaqo leh, hana ugu tegin iyadoo markaasi ay tahay mid maran, balse ku buuxo oo ku qor fikirkaaga iyo ra'yigaaga. maxaa yeelay macalinka imtixaanka kuu soo diyaarinaya su-aashu wuxuu ku weydiiyey siday isagu ula tahay. jawaabta uu rabana waa jawaab saxan misna fikir ay tahay. ereyadu waad ku kala duwanaan kartaan, balse halkii wado inaad isla martaan. tusaale ahaan waxaa ka mid ah macalinku waxaa ku qoran what is food ama what is food used, cuntadu maxaa loo isticmaalaa. haddii su-aasha ay ku jirto soomaaliga oo kaleeta cuntadu maxaa loo isticmaalaa, haddii aan anigu ku dhaho cuntadu waxaa loo isticmaalaa in nafta lagu noleeyo, mid kalea soo booda wuxuu leeyahay cuntadu waxaa loo isticmaalaa in jirka la siiyo tamartaasoo jirka uu ku shaqayn karo. mid saddexaad wuxuu yihi cuntadu waxaa loo isticmaalaa in laga helo firfircooni iyo awood shaqo lagu qaban karayo. dhammaanba waxaynu u wada soconaa waa hal wado, balse waxaa nala weydiiyey ogsoonyo hal su-aal. annaguna waxaan bixinay 3 jawaabo oo ay kala duwan yihiin. jawaabaha isku soo wada duub waxay u wada socdaan keliya hal wey. sidaas la mid ahna fikirkaaga iyo ra'yigaaga su-aasha kula ah ugu jawaab sidaad adigu aad malaysanayso. waxaan filaa in intaa aad ka bogateen. in kale waan idin soo gudbin doonaa insha allah. intaynu muuqaalkan muuqaal xiga kaga kulmi doona oo caynkan oo kaleeta ah, waa saaxiibkiin maxamed umar ali maxamed arkay oo idinkaga tegaya nasiib wacan. guul aynu ku rajan doonaa arday weliba ka mid ah ardayda fanfoor ee isu diyaaranaya imtixaanka. guuleyso weliga.